أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق بسم الله الرحمن الرحيم si aad ula soo degtid waxaad soo gashaa browserka aad ku isticmaashid kadibna meesha sare waxaad ku qoraysaa shabakada website-keeda oo ah engineeryasin.com. after that markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya shaashada ama wejiga koowaad website-ka shabakada engineeryasin.com. waxaad arkaysaa dhammaan softwareska ku jira website-ka sida markaasi aad ka arki kartidba appiska markaasi ku jira oo ay ka mid yihiin Adobe Audition iyo sidoo kale Photoshop iyo kuwa kale. Ani marka waxaan rabaa QuickBooks Enterprise Solution 2021 isaga ayaan markaasi ku dhufanaa. markaan ku dhufto kadib waxaan arkaa maxay softwarekii oo markaasi ama shaashada gaar ah uu leeyahay markaasi keena oo midan ah. kadibna waxaan arkaa halkan inta GB markaasi uu yahay ayaan halkaasi ka arkaa. after that waxaan leeyahay download ama isoo dejiye markaasi macnaheedu uu yahay. after that meeshii waxaa ka bilaabanaya markaasi ama ilaa 13 second 12 yani sekimadaas kadib softwareka wuxuu bilaabaa in si automatically uu isaga uu usoo dego oo computerka markaasi uu kusoo dego. marka hadeertan waxa waaye wax yaraan sugaynaa download hadduu soo qoro qaybta markaasi sare oo kiiska waxaad arkaysaa in softwarekii markaasi uu downloading uu bilaabo. markaad download garayso oo yani uu kusoo dego markuu soo dego kadib waa inaad internetkaada iska xirtaa ilaan markuu soo degayo ma xiri kartid. hadeertan waa kana downloadka wuu socdaa. marka aad dhamaysid kadib waxa waaye internetka ayaad iska xiraysaa ama aan eegno waaba samaynaynaba. so hadeertan waxa waaye waa markaasi noo soo degay kadib waxaan aadaynaa internetkeena ayaan markaasi xaqiijinaynaa. hadeertan internetka waa connected way internet kuma xirna. after that waxaan samaynaynaa wax loo yaqaan extract ama furfuraynaa oo folder ayaan u bedelaynaa zipka midka kadibna extract hiya ayaa markaasi leenahay oo halkan markaasi ku bedel. waxaan ku qoraa markaas passwordka 123 anig markaasi waxaa ah 123 kadib waxaan leeyahay okay ayaan markaa leeyahay. xogaa ayaan yara sugaasi folder markaasi uu igu sameeyo waxa markaasi meesha markaasi ku jira oo zipka markaasi folder si markaasi loogu bedelo. after that hadeertan folder ahaan ayaa markaasi uu diyaarsan double click ayaan leeyahay kadibna midka setupka ugu hooseeyo ayaan markaasi soo furaa oo waxaan leeyahay double click isaga ayaa ah midka markaasi ugu size badan. so waxa waaye double click ayaan markaasi leeyahay isaga ayaan rabaa inaan computerka ku rakibo ama installing aan ku sameeyo. so markaan click dhaho waxaa laga yaabaa in muddo badan ay qaadato kadib next ayaan leeyahay amarka ayaan markaasi sii qaadana. waxa waaye xoogaa waxaa laga yaabaa daqiiqado badan in markaasi ay qaadato. after that waxa waaye markaad yeera sugto yani dulqaad inaad yeelato ayaa markaasi loo baahan yahay ileen softwareka aad computer kusii shubaysa. after that hadeertan waa markaasi install garaynay kadibna hadeertan wuxuu leeyahay softwarekii yani computerka waa markaasi lagu rakibay way kadibna waxaa loo baahan yahay maxay lambarka serialka in markaasi aan gelino oo productkeyga iyo sidoo kale kuwa kale ah. kadibna mid walba waxaan ku noqonaynaa folderka asalka ah kadibna notepadka wixii markaasi meesha leh oo koodka ayaa markaasi soo gelinaynaa. tusaale licensiga ayaan hadeertan soo copy garaynaynaa oo dooranay right click ayaa markaasi leenahay waxa waaye waan soo copy garaynay control C. after that meeshan ayaan ku paste garaynaynaa ama laakiin lambarkan kale ee hoose oo productkeyga waxaa khasab ah in isaga aan qoro. haddii aan soo copy gareeyo oo aan meeshan imaado paste aan dhaho ma yeelayo sida daraadeed marka waa muhiim in gacan aan markaas ku qoro. haddii aan ku noqdo hadeertan waxa waaye softwareka ama lambarkii yani waxa waaye pasteedii aan ku dhaho caadi ahaan hadda waxaan isticmaalaya shortcut wuu diidaa mid aan u qoraa marka lambarada aan fiiriyay marka mid walbo yani saddex god ayuu markaas ku wataa. god walbo tiradiisa ayaan markaas ku qoraa. hadda saddexda god ee dambe ayaan haddana sii qoraa kadib waxaan leeyahay finish markaas leeyahay oo butonkaas markaasi cagaaran. after that socotaa kadibna waxaan leeyahay maxay butonkaasi ayaa markaas ku dhufanaa oo install markaasi ayaan markaasi leeyahay. after that
okay waa sii wadaa marka meesha uu ku save gareynayo way kadib waa sii wadaa ugu dambeyn waxa waaye wuxuu xaqiijinaa productiga iyo licensiga kadibna next ayaan leeyahay waxa laga yaabaa in daqiiqado badan ay markaasi kugu qaadato marka aad installingka markaasi aad sii wado oo hawshan marka uu sii wado daqiiqado badan ayaa markaasi laga yaabaa inay qaadato waxa loo baahan yahay markaasi dulqaad badan inaad yeelato aad sugto hadba waxay ku xiran tahay processorka computerkaaga inta markaasi uu yahay haddii processor computerkaaga uu badan yahay waxa waaye si degdeg ah ayuu markaasi kugu rakibaa softwarekan computerkaaga haddii markaas uu yar yahayna waa inaad dulqaad yeelataa oo aad wax badan markaasi sugtaa sidaa daraadeed marka hadeertana hawsha way dhamaatay complete way يعني softwareka waa complete يعني waa markaasi dhameystiran yahay wuxuu bilaabay maxay soo dhawow iyo ku dhaay quick softwareka markaasi ku soo dhawow shaashadiisii hore way ama interface kadib maxaad u isticmaalaysaa ayaad halkan dooranaysaa hadba ujeedkaaga ayaad markaasi meeshan ka dooranaysaa oo midka aad u isticmaalaysa kan kore ayaad dooran kartaa ama midka hoos adiga kuwa akhri kadibna waxa waaye ujeedkaaga dooro kadibna waxaad leedahay next ayaad leedahay kadibna waxa waaye qoraalada si akhri kadibna next ay marka leedahay xogaa inaad yara sugto ayaa sidoo kale muhiim ah oo wali installing iyo markaas wali ku gudan jira waxa waaye hawlaha markaas xaqiijinaa kadibna waxa leeyahay yes ayaa markaas leeyahay kadibna next hooshii markaasi way markaasi si socotaa way waxa way hadeertan waxa uu ii soo bandhigaa shaashada oo maqal yar ama maqal yar oo soo dhaweynaa oo markaasi uu ku sheegayo maxay ku soo dhawow saddex qaab aad activate kari hada 30 maalmood kaliya way soo marka adiga uma baahni soo folderkii asalkan soo furaa kadibna crashka midka labada file ku jira ayaan soo copy gareynaa marka soo copy gareeyay kadibna screenka waxa ii saaran softwarekii right click ayaa markaas leeyahay kadibna open location ayaan leeyahay kadibna meeshan maximum sando kadibna right click aan leeyahay paste ayaan halka markaas ku sii dhaxa kadibna replace ayaan markaas leeyahay kadibna tiktok ii saaran tahay continue ayaan markaas leeyahay labadii file ee crashka ku jiray ayaan markaas soo meeshan aan ku paste gareeyay after that marka waan ka dhamaaday close ayaan markaas leeyahay kadibna folderka iyo markaas soo furaa oo double click iyo markaas leeyahay after that folderka iyo markaas ma setupkii oo QuickBooks ahaa hadeertana waa activated way waa markaas furan yahay ama laakiin inta aanan labadan file paste aanan ku dhihin wuxuu ahaa mid trial ah oo 30 maalmood kaliya aad haysatid sida daraadeed hadeertana waa activated way folder filekii oo markaasi ah QuickBooks waliba versionka u dambeeya welcome ayuu ku dhahay yani QuickBooks oo waliba 2021 ah so hadeertan shaashada ama muuqaalka koowaad ayaa markaasi soo muuqanaya hadeertan waa soo dhaweyn okay ayaa markaasi leeyahay okay hadeertan marka waxaad abuuri kartaa company marka waxaan filayaa in qaabka loo activate gareey si fiican loo fahmay intaan ku soo gabagabeynayna intaan ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh